السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركلة iyo darsigeeni ku saabsanaa tafsiirka Quraanka Kariimka ah ku soo dhawaada walaalayaal. Aayadihii hore Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka soo hadlay dadkii gaalada ahaa iyo mushrikiintii iyo halka masiirkoodu ku dambeyn doono. Kabacdi Ilaahay wuxuu ku xigsiiyey aayadaha Quraanka ka hadlaya dadka muttaqiinta iyo mu'miniinta iyo halka masiirkoodu noqon doono. waana caadiyan sida quraanku isku daba dhigo labada qolo. aayadda koob iyo soddonaad suuratu Amma Ilaahay wuxuu subxaanahu wa tacaala inna lilmuttaqiina kuwa Ilaahay ka cabsaday adduunka wax kastoo Ilaahay raali gelinaya adduunka la yimid waxay heli doonaan mafaazan abaalgud ayay heli doonaan. abaalgudka ugu weynna waxa weeye in Ilaahay naarta ka badbaadiyo, waliba naarta Ilaahay ka soo sheekeeyay. إلهي سبحانه وتعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا تاس إلهي وكبد بادنيا سبحانه وتعالى ونقوش وين قفك إنه إلهي النار تكبد باديو. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إلهي وحد قفك النار تلقف هجيو والجنة لقليو أي أدونك قوليستي يا أخربا. guulaha faraha badan ee Ilaahay siin doono dadka Ilaahay ka cabsaday raani harshaha Ilaahay ku dadaalay adduunkii waxa kamid ah hadaa'iqa waxay heli doonaan beero iyo bustaano ay dhir fara badan ka baxdo, dhirtaasina kala duwan yihiin, kala noocyo badan yihiin oo midhaha ay bixiyaan ay kala duwan yihiin ay heli doonaan bustaano aynaan sawiran karin inagu. waa acnaaban iyo cinab marka Ilaahay sida gaarka cinabku tilmaamay si khaasa. cinabkuna waa noocyo kamid ah fawaakihda dadku ugu jecel yihiin adduunka oo qof kasta abateed uu hayo, qoftiida uu yar yahay. marka cinab fara badan oo kala duwan oo kala midaba ay heli doonaan bi Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo loogu deeqi doonaayo la siin doono. marka jannadu waa magacyo uun adduunka ayay wadaagaan, magacyada adduunka cinab iyo nakhli iyo waa magacyo, laakiin رسولك تلمامي عليه الصلاة والسلام ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنة واتاس أول قد كده ووحانا إلى رك دقنا مقال إسلام كان وقف بني آدم آن الصوران كريم وحكم إذا أول قد كده هاي بحين دونه وكواعب هبلا يرير وكشات معه ومعناها إسكو داء أترابا إسكو فلعة هبلا إسكو فعة أو كشاتمة أو مركا قانقاري أو إسلاك أو معناها متقاربات في سنهن دأدا وي كسمين وي إسكو دويهن جوغا يا جمال كان وي كسميهن ومكلا قرح بنا وإسكو جوغا وإسكو جمال وإسكو داء وإسكو فع. مركا كواعب وحلا يراهدا وجمع كاعب والفتاة التي وصلت إلى سن البلوغ في اللغة العربية. وحلا يراهدا إن أنت قاعدي دادي لغوقين قاعدي لها. مركا علماء قاربا أترابا كتل ماما دادا 33 ستحي ستجر وحكم إذا إمام فيروز أباد تفسير كيس. لكن دادا سوحد موداين أنا كلمة اللغة العربية أنا دبقين waayo kaacib waa gabadha ama inanta markaa qaan gaadhay 19 jir 18 jir da'deedu tahay, laakiin 30 jir waa da' weyn. marka tafsiirkaas waxaan moodaa culimada qaar ku fasireen inuu xoogaa luqadda carabiga ka yara fogay. wa ka'san waxa la siin doonaa bi Ilaahay subxaanahu wa tacaala balgudkooga kamida koob dihaaqan buuxa, koob khamri oo buuxa oo burqanaya oon kala dhinnayn ayaa la siin doonaa. ma suloogi doonaan oo ma oran doono waa maxay koobkan kala dhiman iyo naga soo buuxi iyo ma jirto waxaas. wuu burqanayaaba waaba ka daadanayaaba khamriguna maaha khamrigan adduunka lagu wareerayo lagu dawaqayo ee mataga leh ee calool xanuunka leh kaadida badan leh maaha. waa khamri waxaasoo dhibaataa aan wadan oo raaxo ah oo cabitaan macaan oo inaan hadda tilmaami karin weeye, magacuun bay ka sameeyeen. markay khamrigaa cabbaan ay jannada joogaan sida adduunka diskooyada adduunka waad aragteen oo marka ay khamriga cabbaan dee way wareeraan oo waa la isku dagaalayo, waa lagu qayliyaa, waa lagu buuqaa, waxay doonaan bay ku hadlaan. laakiin jannadu sidaa maaha. laa yasmacuuna fiiha. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala kuma dhex maqli doonaan jannada laqwan
kuma dhex qeylin doonaan hadal maala yacni oo laqwi ah oo been ah oo been lagu dhaaranayo ma jirto buu ilaahay leeyahay subxaana watacaala. fadhi ku-dirarka adduunka oo kale maaha jannadu lagu wareerayo oo lagu buuqayo, walaa kidaaban beena lama sheegayo buu ilaahay leeyahay subxaana watacaala. been la isku sheegayo oo la isku maaweelinayo sida adduunka beenta la iskugu maaweeliyo ma jirto buu ilaahay leeyahay subxaana watacaala. kafta kuwa kaftan hufan oo run ah oo wax dhaba laga wada sheekeysanayo iyo hadal naxariis iyo kalgacal uu ku dheehan yahay weeye, maaha been iyo laqwi maaha. adduunka waxaa lagaga imanayo jazaan min rabbik, ilaahay wuxuu yihi waa abaalmarin ilaaha xaggiisa ka timid subxaana watacaala. rabbiga abaalmarin uu bixinayo, abaalgud uu bixinayo weeye oo uu siinayo dadka mutaqiinta oo camalkoogii loogu abaalgudayo. cataan waa deeq. qofka camalkiisa hadduu si kasta salaad usoo tukado, uu soo xajo, uu soo soomo, dee camalkiisa janno kuma gadan karo, kumana iibsan karo, laakiin waa deeq ilaahay siiyey subxaana watacaala. uma dhiganto xisaaban, waa xisaab ay ku qancaan, abaalgud ay ku qancaan oo ku filan buu ilaahay siinaya subxaana watacaala. ama xisaaban waa xisaab loogu xisaabinayo camalkay soo qabteen loogu abaalgudayo. markaa dadku way kala duwan yihiinoo dadka qaar waxaa loogu abaalgudayaa xasanada qofku soo qabto 10 jeer baa loo tibaaraya. qofka muuminka waa qofka ugu abaalka yar weeye, ugu abaalgudka yar weeye, xasanadiisa 10 jeer baa loo laba tibaaraya. dadka qaarna 700 ضعف 700 jeer baa loo laba tibaaraya. qaarna waxa weeye biduuni xisaab, biduuni nihaaya, bilaa xisaab ayaa la leeyahay. waxaad doonto qaado jannada, saad doonto u dhex gal baa la leeyahay, saad doonto ugu dhex burqo, ugu dhex dabaalo. waxaa soo abaalguda walaalayaal waa cataan, waa deeq ilaahay bixinaya subxaana watacaala. allahuma inaa nas'aluka min cataa'ika wafadlika ya da ljalaali walikraam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الكريم. سبحان ربك.